ra'sa shada'aga faqaqala ma'na wahaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن داوديال كسر دوادة برنامج كترتنا قناة كبيشة بركيسان رمضان تلفزيون كسم نيوز تي في أو أي تابع قلنا يسود هبشيل جروب هالك سؤال الديارين تو أي تاي جامعة العمرة انترناشنال يونيفرسيتي مقالة عاصمة مقدشة فدقيقة وياهي tartanka waxaa ku madlan labada iskuul ee kala ah Al-Khaliij iyo Khulafaa Ar-Raashidiin oo qayb ka ah 32 iskuul ee ka qayb galaya tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee telefishinka Som News TV. labada iskuul waxaa la weydiin doonaa min 7 su'aal taa oo u dhiganta in labada iskuul wadarta su'aal weydiintoodu ay tahay 14 su'aal halka ardada qaybta ka ah labada iskuul iyo daawadayaashaba ay fursad u helayaan su'aalo dhaxtaal ah oo ay ku helayaan hadiyado qaali ah balse inta tartankeena aanan furin aan ka codsado guddiga si halkan ay u yimaadaan labada arday ee ay soo dirsanayaan labada iskuul si cidda su'aasha lagu bilaabayo aan u xaqiijino iskuulada Al-Khaliij iyo sidoo kale Khulafaa Ar-Raashidiin waa inay soo dirsadaan min hal arday si u qaadaan qoryaturka عدة ترتن كمان تسوياش اللي قبل الله بدونه. بدك توصل نمبر هذا قبستين. خلفاء الراشدين. وهاجاك دا وضيال سيدا عدل سعودين بعرضي كسعودي دكسيغا هوس دحي سري خلفاء الراشدين waxay qabsadeen number koota oo ka dhigan in su'aasha ugu horeysa ee tartanka la weydiin doono ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin. ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin dhagaha fura su'aasha ugu horeysa waa su'aal aqoon guud ah oo ku saabsan dalka. waxaad sheegtaan magaalo Soomaaliyeed oo magaceedii hore la oran jiray ama loo yaqiinay Bandar Qaasim. mar kale haddaan su'aasha ku celiyo waxaad sheegtaan magaca magaalo Soomaaliyeed oo waagii hore loo yaqiinay Bandar Qaasim. marka saddexaad haddii su'aasha aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin waxaad sheegtaan magaca magaalo Soomaaliyeed oo waagii hore loo aqooni jiray Bandar Qaasim. waxaan filayaa in jawaabta aad haleeli doontaan insha Allah. magacaygu waa Ismaaciil oo tartamo ka socda iskuulka Khulafaa Ar-Raashidiin Primary and Secondary School. jawaabtan su'aasheeda isku day waa xariyaali. su'aashan oo ahayd su'aal aqoon guud ah kuna saabsan guud ahaan dalka aydna su'aashii ugu horeysay ee la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aashii ugu horeysay ee la weydiiyay iskuulka Khulafaa Ar-Raashidiin aqoon guudna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii su-aashii ugu horeysay ee barnaamijka ay soo hareer martay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin iminka si ka faa'iideystaan waxay u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe ee Al-Khaliij jawaabta. magaca Cabditaxsan Bare kana socdo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Khaliij su'aal jawaabta aan isku day insha Allah waxay noqon doontaa Boosaaso. su-aashan oo ahayd su'aal aqoon guud ah la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ar-Raashidiin soo hareer martay iminka si ka faa'iideystaan u hortaalla ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Khaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysiga ahaan ugu soo gudubtay iskuulka Al-Khaliij aqoon guudna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah.
Bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Al Khaliij hal dhibic ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Khaliij. waa su-aashii koobaad ee la weydiiyo waana su-aashii labaad ee barnaamijkeena dhagaha fura. waxaad sheegtaan magaalo Soomaaliyeed oo loo aqooni jiray Taytayley. mar kale haddaan ku celiyo su-aasha, waxaad sheegtaan magaalo Soomaaliyeed oo loo aqooni jiray Taytayley. mar saddexaad haddii aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Khaliij, dhagaha fura. waxaad sheegtaan magaalo Soomaaliyeed oo loo aqooni jiray Taytayley. waxaan filayaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Khaliij in su-aashaas jawaabteeda aad haleeli doontaan insha Allah. magacaygu waa xafs cabdullaahi maxamed kana socota Al Khaliij Primary and Secondary School. jawaabtaas ku dayo balcad. su-aashan oo ahayd su-aal aqoon guuda ku saabsanayd dalkeena hooyo ee Soomaaliya, la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Khaliij jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aashii ugu horeysay ee la weydiiyay iskuulka Al Khaliij aqoon guudna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo Al Khaliij, 2 dhibcood ka qaata Dahabshiil Group. su-aasha xigta waxaa iska leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Raashidiin. waa su-aal tarbiya ah. waxaad sheegtaan qofkii ugu horeeyay ee caruurta ka rumeeya Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. mar kale haddii su-aasha aan ku celiyo, waxaad sheegtaan qofkii ugu horeeyay ee caruur ah ee rumeeya Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. mar kale haddii aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Raashidiin, waxaad sheegtaan qofkii ugu horeeyay ee caruur ah ee rumeeya Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha Allah. bismillaah waa tartamo ka socda iskuulka Khulafaa Raashidiin. su-aashan jawaabteeda waxay noqon doontaa Cali Abi Daalib. su-aashan oo ahayd su-aashii labaad ee la weydiiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Raashidiin, aydna su-aashii saddexaad ee barnaamijkeena jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aashii la weydiiyay iskuulka Khulafaa Raashidiin tarbiyana ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah.
baraawo laba dhibcood ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin ka qaata dahabshiil group. su-aasha xigta waxaa iskale ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij dhagaha fura. waxaad sheegtaan qofkii ugu horeeyay ee haweeney ah ee rumaysa nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. mar kale haddii aan ku celiyo, waxaad sheegtaan qofkii ugu horeysay ee haweeney ah ee rumaysa nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. mar saddexaad haddii aan ku celiyo su-aasha, waxaad sheegtaan qofkii ugu horeeyay ee haweeney ah ee rumaysa nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaan filayaa jawaabta inaad haleeli doontaan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij. bismillaah magacaygu waa Maadi Xuseen Cali kana socda iskuulka Alkhaliij Primary Secondary School. su-aasha jawaabta isku day Khadiija binti Quwaylad. su-aashan oo ahayd su-aal tarbiya la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij, jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyay iskuulka alkhaliij tarbiyana ahayd jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. baraawo laba dhibcood dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij ka qaata dahabshiil group. su-aasha xigta waa su-aal xisaab ah. waxaa leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin. ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin dhagaha fura. waxaan haystaa tiro, waxaan ku daray tiro ah 8, wadartu waxay noqotay 10. waa imisa tirada aan haystay? waxaan haystaa tiro, waxaan ku daray 8, wadartu waxa ay noqotay 10. waa imisa tirada aan haystay? waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin. bismillaah aniga magacayga Axmed Cabdullaahi oo ka socda iskuulka khulafaa uraashidiin. su-aasha jawaabteeda waxay noqon doontaa 2. su-aashan oo ahayd su-aal xisaaba la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin, jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyay iskuulka khulafaa uraashidiin xisaabna ahayd jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. baraawo laba dhibcood ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin ka qaata jaamacadda Al-Cimra International University. su-aasha xigta waa su-aal xisaab ah. waxaa leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij dhagaha fura. waxaan haystaa tiro,
waxa aan ka jaray 12 farqiga waxa uu noqday 8 waa imisa tirada aan haystay mar kale aan ku celiyo waxaan haystaa tiro waxa aan ka jaray 12 farqiga waxa uu noqday 8 waa imisa tirada aan haystay mar saddexaad aan ku celiyo waxa aan haystaa tiro waxa aan ka jaray 12 farqiga waxa uu noqday 8 waa imisa tirada aan haysto waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Khaliij insha Allah بسم الله أنا من عيفة مدينة حسن أركز أسطول على قليل برنبران تدري إسرو ساعة جابت أسطول وعفر su-aashan oo ahayd su-aal xisaabaha la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Khaliij jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha la weydiiyey iskuulka Al-Khaliij xisaabna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada haddaba haddii ay soo horeer martay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Khaliij iminka si ka faa'iideysaan waxay hortaala ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin jawaabta bismillaah waa tartamo ka socda iskuulka Khulafaa Ur-Raashidiin Primary and Secondary School su-aashan jawaabteeda aan isku dayo waa 20 su-aashan oo ahayd su-aal soo horeer martay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Khaliij iminka si ka faa'iideysaan u hortaala ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha ka faa'iideysi ahaan ugu soo gudubtay iskuulka Khulafaa Ur-Raashidiin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah baraawo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin hal dhibic ka qaata Dahabshiil Group su-aasha xigta waxaa iska leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin su-aashu waa su-aal suugaana dhagaha u fura waxaa iska leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin waana su-aal suugaana gabayga marinka waxaa tiriyey Jaalle Cumar Carte Qaalib haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabayga marinka waxaa tiriyey Jaalle Cumar Carte Qaalib haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabaygaas mar saddexaad aan ku celiyo gabayga marinka waxaa tiriyey Jaalle Cumar Carte Qaalib haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabaygaas waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin waa tartamo ka socda iskuulka Khulafaa Ur-Raashidiin su-aashan jawaabteeda aan isku dayo waa 1947 su-aashan oo ahayd su-aal suugaan ah la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Ur-Raashidiin jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga
su-aashii toddobaad ee la weydiiyey iskuulka khulafaa uraashidiin suugaanna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii su-aashii suugaanta ahayd ay soo hareer martay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin iminka si ka faa'iidaysaan waxay u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij. bismillaah magaca cabditax sanbare kana socdo dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij su-aal jawaabteeda hadda isku day waxay noqon doontaa insha allah 1998. waa hagaag su-aashii sida ka faa'iidaysay ahaan u hortaallay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha ka faa'iidaysiga ahaan ugu soo gudubtay iskuulka alkhaliij suugaanna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddii labada iskuul ay soo hareer martay su-aashii suugaanta ahayd ee ku saabsanayd xilligii la tiriyey gabayga marinka jawaabta aan ka dhursugno jaamacadda alcimra international university. xamdi su-aashii toddobaad ee barnaamijka lana weydiiyey iskuulka khulafaa uraashidiin suugaanna ahayd ay ka jawaabi waayeen una gudubtay iskuulka alkhaliij iyaguna aysan ka faa'iidaysan una dhignayd su-aasha gabayga marinka waxaa tiriyey jaale cumar carte qaalib haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabayga jawaabta saxduna waxa ay tahay sanadii 1968. waxaan filayaa labada iskuul daawadayaasha ka qaybgalayaasha dhammaantood inay meel ku xardhan doonaan mar kalena aanay soo hareer mari doonin. su-aasha xigta waa su-aal suugaana waxaa iskale ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij dhagaha u fura. gabayga geediga la raray waxaa curiyey abwaan axmed ismaaciil diiriye oo ku magac dheeraa qaasim haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabayga. su-aasha mar kale aan ku celiyo gabayga geediga la raray waxaa curiyey axmed ismaaciil diiriye oo ku magac dheeraa qaasim haddaba sheeg sanadkii uu tiriyey gabayga. mar saddexaad ayaan ku celinayaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij dhagaha fura. gabayga geediga la raray waxaa curiyey axmed ismaaciil diiriye oo ku magac dheeraa qaasim haddaba sheeg sanadkii la tiriyey gabaygaas. waxaan filayaa in ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij su-aashaas jawaabteeda ay heli doonaan insha allah. magacaygu waa xafs cabdullaahi maxamed kana socota alkhaliij primary secondary school su-aal jawaabtaas ku day waxaa la tiri 1968. su-aashan oo ahayd su-aal suugaan ah la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey iskuulka alkhaliij suugaanna ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay haleeli waayeen waxay iminka si ka faa'iidaysaan u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin. reer khulafaa uraashidiin jawaabta. bismillaah anigu waa magacayga bashiir maxamed cali kana socda iskoolka dugsiga sare dhexe ee khulafaa uraashidiin su-aasha jawaabteeda isku daya waxay noqon doontaa insha allah 1943. su-aasha ahayd su-aal suugaan ah ay lahaayeen ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij iminka si ka faa'iidaysaan u hortaalla ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin jawaabtu haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aashaas suugaanta ee ka faa'iidaysiga ahaan ugu soo gudubtay iskuulka khulafaa uraashidiin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii labada iskuul ay soo hareer martay su-aasha jawaabteeda aan ka dhursugno jaamacadda alcimra international university. su-aashii suugaantaeed ee la weydiiyey iskuulka alkhaliij ay ka jawaabi waayeen ka faa'iidaysahaana ugu gudubtay dhigooda iskuulka khulafaa uraashidiin una dhigneed sida tan gabayga geediga la raray waxaa curiyey axmed ismaaciil diiri oo ku magac dheeraa qaasim haddaba sheeg sanadkii uu tiriye gabayga jawaabta saxda waxay tahay sanadii 1970. waxaan filayaa labada iskuul ka qaybgalayaasha iyo tartamayaashaba in meel ay ku xardhan doonaan laakiin
ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij birtay ku dhufteen 2 sano ugu dhineed bis. su-aasha xigta waxaa iska leh ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin dhagaa fura. waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliya. su-aashu waa su-aal juqraafi ah. waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliya. mar kale aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliya. jawaabta ayaanu sugaynaa. anigoo ah Cabdiqaadir Maxamuud Raage kana socdo iskuulka Khulafaa Uraashidiin Primary School haddii aan isku day su-aashaas jawaabteed waa Banaadir gobolka Banaadir. su-aashan oo ahayd su-aal juqraafi ah la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Uraashidiin jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyay iskuulka Khulafaa Uraashidiin juqraafina ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada. haddaba haddii su-aashii juqraafiga ahayd ay garan waayeen jawaabteeda ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Uraashidiin iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabta. bismillaah anigoo magacayga Salma Salax Xasan kana socdo dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij su-aasha jawaabteeda isku day waa gobolka Baay. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Khulafaa Uraashidiin soo hareer martay iminka si ka faa'iideysaan u hortaalla ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyay su-aasha ka faa'iideysiga ahaan ugu soo gudubtay su-aasha ka faa'iideysiga ahaan ugu soo gudubtay iskuulka alkhaliij juqraafina ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada. haddaba haddii labada iskuul ay soo hareer martay su-aashaas jawaabta Al-Cimra International University. su-aasha la weydiiyay iskuulka Khulafaa Uraashidiin juqraafina ahayd ay ka jawaabeen una gudubtay faa'iideysiga iskuulka alkhaliij iyaguna aysan ka faa'iideysan una dhigneed sheeg gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliya jawaabta rasmiga waa gobolka Bari. waa hagaag su-aasha xigta ayaanu u gudagalaynaa. waxaa iskale ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda yar Soomaaliya. alkhaliij waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda yar Soomaaliya. mar kale aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij waxaad sheegtaan gobolka ugu baaxadda yar Soomaaliya. waxaan filayaa in jawaabteeda aad heli doontaan insha Allah. حسن الرسول وزول على خليج بربرة secondary school ساعات جاوبت تقدر تقول بنادر su-aashan oo ahayd su-aal juqraafi ah la weydiiyay ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga.
su-aasha juqraafiga ee la weydiiyey iskuulka alkhaliij jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa. bravo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij 2 dhibcood. waa hagaag daawadayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa tartanka dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo ay ku madlan yihiin iskuulada kale ah dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin iyo dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij. waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena su-aalaha ayaan sii ambaqaadaynaa. sida qoratiirkii hore aad ku daawanaysaenba su-aalaha waxaa lagu bilaabayaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin. waxaan su-aasha iskale iminka ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin. su-aashu waa su-aal taariikha. goormo ayaa la aasaasay ururka midowda afrika? mar kale haddii aan ku celiyo, goormo ayaa la aasaasay ururka midowda afrika? mar saddexaad haddii aan ku celiyo, goormo ayaa la aasaasay ururka midowda afrika? waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad aleeli doontaan insha allah. magacayga anuu yahay yuusuf maxamuud cali oo ka socda iskuulka sare khulafaa uraashidiin. su-aashaas jawaabteeda isku daya 1919. su-aashan oo ahayd su-aalo taariikha la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey iskuulka khulafaa uraashidiin ahaydna su-aal taariikha jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid qalada. haddaba haddii ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin su-aashii taariikhda ahayd ay soo hareer martay iminka si ka faa'iidaystaan waxay u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabta. bismillaah anigoo magacay safiya cabdinuur kana socda iskuulka alkhaliij primary and secondary school. su-aasha jawaabteeda isku day waxay u dhici doontaa 1963. su-aashan oo ahayd su-aal taariikha la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa uraashidiin soo hareer martay iminka si ka faa'iidaystaan u hortaallaa ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha ka faa'iidaysigaan ugu timid iskuulka alkhaliij jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa. bravo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij ka faa'iidaysigu waa 1 dhibic. jaamacadda alcimra ka doonta. su-aashu waa su-aal taariikha. waxaad sheegtaan xarunta midowda afrika wadanka ay ku taalo. mar kale su-aashaan ku celiyo, sheega xarunta midowda afrika wadanka ay ku taalo. mar saddexaad aan ku celiyo, sheega xarunta midowda afrika wadanka ay ku taalo. waxaan filayaa in su-aashaas jawaabteeda aad heli doontaan insha allah. bismillaah magacaygu waa Maad Xuseen Calo kana socda Alkhaliij Primary Secondary School. su-aasha jawaabta isku day Ethiopia.
su-aashan oo ahayd su-aal taariikha la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha la weydiiyey iskuulka alkhaliij ahaydna su-aal taariikha jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa bravo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij 2 dhibcood somtel ka doonta su-aasha xigta waa su-aal biology ah waxaa leh ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin dhagaa fura waa imisa tirada lafaha dhabarka qofka qaangaarka ah mar kale aan ku celiyo waa imisa tirada lafaha dhabarka qofka qaangaarka ah mar kale aan ku celiyo su-aashu waa su-aal biology ah waa imisa tirada lafaha dhabarka ee qofka qaangaarka ah waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha allah بسم الله مقعي أنا يا يوسف محمد علي أو كسعود سكول كسر خلفاء ur-raashidiin su-aashaas jawaabteeda isku dayo konton iyo sideed su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha la weydiiyey iskuulka khulafaa ur-raashidiin biology ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada haddaba haddii ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin su-aashii biology-eed aanay ka jawaabin iminka si ka faa'iidaysa ahaan waxay u hortaallaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabta بسم الله magaca Cabdi Xasan Bare kana socdo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee alkhaliij su-aal jawaabteeda haddaan isku dayo insha allah waxay noqon doontaa 33 su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin soo hareer martay iminka si ka faa'iidaysaan u hortaalla ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha ka faa'iidaysiga ahaan ahaydna su-aal biology una timid iskuulka alkhaliij jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa bravo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij ka faa'iidaysigu hal dhibic ka doonta somtel su-aasha xigta waa isla su-aal biology ah waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij dhagaa fura waa imisa tirada muruqyada aadanaha waa imisa tirada muruqyada aadanaha mar kale aan ku celiyo waa imisa tirada muruqyada aadanaha mar kale aan ku celiyo waa imisa tirada muruqyada aadanaha waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad garan doontaan insha allah أنا مريم فاطمة جينا وتصعد ستود الأقلية بنبرة سكندري سكول ساعات جابت تستود لو
su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij jawaabtii ay bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha la weydiiyey iskuulka alkhaliij ahaydna su-aal biology jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada haddaba si ka faa'iidaysaan waxay u hortaallaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin bismillaah waa tartamo ka socda iskuulka khulafaa ur-raashidiin primary and secondary school su-aashan jawaabteeda aan isku daya waa 3 su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij soo hareer martay iminka si ka faa'iidaysaan u hortaalla ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin jawaabtii ay bixiyeen iyana haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha ka faa'iidaysi ahaan ugu timid iskuulka khulafaa ur-raashidiin biology ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada jawaabtu waxaan ka dhul sugnaaba waa jaamacadda alcimra international university iyo jawaabteeda su-aashii toddobaad ee la weydiiyey iskuulka alkhaliij biology ahayd ay ka jawaabeen una soo gudubtay iskuulka khulafaa ur-raashidiin iyaguna aysan ka faa'iidaysan una dhigneed sida tan waa imisa tirada muruqyada aadanaha jawaabta rasmiga waa 639 waxaan filayaa labada iskuulka qaybgalayaasha tartamayaasha iyo dhammaan bulshada daawanaysaba in meel ay ku xardhan doonaan jawaabahaas mar kalena aanay hareer mari doonin halkaa ayay ku idishahay ama ay ku idil yihiin 14 su-aal ee la weydiin lahaa ee xaqa ay u lahaayeen labada iskuul walba waxaa la weydiiyey min 7 su-aal haddaba natiijada tartankan oo ay ku madlanayeen dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin iyo dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij aanu ka sugno guddiga iskuulada maanta halkani ku tartamayay kala haayeen khulafaa ur-raashidiin iyo alkhaliij waxaa la weydiiyey min 7 su-aal haddii aan ku hormaro iskuulka khulafaa ur-raashidiin oo su-aalaha maanta iyagu ku bilaabmay waxaa la weydiiyey 7 su-aal waxa ay ka jawaabeen 2 su-aal sidoo kale waxaa dhigooda iskuulka alkhaliij ka faa'iidaysaan ugu soo gudubtay 3 su-aal waxayna ka faa'iidaysteen 1 su-aal wadarta guud ee dhibcaha waa 5 iskuulka khulafaa ur-raashidiin sidoo kale iskuulka alkhaliij waxaa la weydiiyey 7 su-aal waxay ka jawaabeen 4 su-aal sidoo kale waxaa ka faa'iidaysaan ugu soo gudubtay 5 su-aal uga timid dhigooda khulafaa ur-raashidiin ka faa'iidaysiguna waxay ka jawaabeen 3 su-aal wadarta guud waa 11 dhibcood waxaan filayaa in libinta guushu maanta ay raacday ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij iminka waxaan dareenkooda siinaynaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin oo maanta halkan aqoon kusoo bandhigay awalan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo ah magacay yuusuf maxamuud kana socdo iskuulka khulafaa ur-raashidiin tartamayaasha oon kamid ahana walaalaheen oo maanta naga badiyeen caadi waay ma waa la iska badiyaa hambali oo hambaliyaa qofba markiis waay aad bay u mahadsan yihiin ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin oo maanta halkan aqoon kusoo bandhigay balse waayahu iyo waqtiga uu iiliyey waa rajaynayaa xillin kale in dhankooda libinta ay heli doonaan dhammaanna su-aalaha ay ka wada jawaabi doonaan halka maanta ay ku liitaanna ay diyaargarow ballaaran ka gali doonaan tartanka xigana insha allah waxaan u rajaynayaa guul iminka waxaan siinayaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij oo maanta tartanka koobkiisa wada ardayda dugsiga hoose dhexe sare alkhaliij soo dhawaada bismillaah waa dhownahay oo horeen waxaan mahad celinaynaa allah subxaana watacaala kaasoo tartanka noogu bilaabay si nabad ah nooguna soo dhameeyey si nabad ah marka labaad waxaan u mahad celinaynaa tartamayaasheena khulafaa ur-raashidiin oo maanta na dhexmaray halkaan uu dhexmaray tartan aad iyo aad u qurux badan marka waxaan leenahay maadaama aan ka guuleysano walaalaheen insha allah isnabadjebina mar la kalena guush weyna dhexmari doonta insha allah waqtigii waayuhun baa ka heliyey balse aqoon ayay soo bandhigeen ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee khulafaa ur-raashidiin tartanka maantana waxaa ku guuleystay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee alkhaliij tartanka xiga inta aanu ku kulmi doono waxaa ku madlan tartanka xiga iskuulaadka kala ah city iyo yarmuug inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen oo isku duuban sidaasi nabadgelyo amaana allah qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri bara afkaaga bilowinkaada bobsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri jaxa khada ra'sa shada'aga faqa kala